daawade sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay laba nin oo dhalinyaro ah. Midna uu yahay mid iska degan, midna uu yahay mid ciyaal xaafo ah oo dhib badan, yacni ciyaal xaafadeed. reer xamarku waxay u yaqaaneen ciyaal weero, kuwa dhaha mataqaana geli socod. sheekadaas ayaynu maanta ka sheekeyn doonaa. hadda ka hor labada qofna waxaynu u kala bixin doonaa laba magac. mid waxaynu u bixin doonaa Warfaa, midna waxaynu u bixin doonaa Geedi oo magacyadii asiliga ahaa. Geedi waa mid degan halka Warfaa uu yahay mid ciyaalka xaafadda ah. maalin maalmaha ka mid ah ayay isu soo raaceen. Warfaa oo ahaa ciyaalka xaafadda, Geedina uu ahaa mid degan oo qof iska degana. waxa uu ku ogaa saaxiibkii Warfaa mid foodo badan oo dhib badan oo hablaha dabagala, dhaha lambarka ii qora, hadday lambarka u qori waayaanna dharbaaxo qaado, indhaha u kala fura oo dila oo dhibaateeya. maalin maalmaha ka mid ah, Warfaa iyo Geedi oo wada socda ayaa waxa ay soo mareen wadadiisi u socdeen ayaa waxa dhaaftay bahal gabar ah, geenyo qurux badan ah, aad quruxdeeda indhaha aadan u dhammayn karin, aadna ka bajaysan karin. markaasay si xad dhaaf ah u wada fiiriyeen. haddaba Warfaa gabadhii ayuu quruxdeeda la amakaagay, markaasuu indhihiiba ka ilbiriqsan waayey. markaasuu yidhi, war Geedi, nimcada tan lugaynaysa lagama hari karee, isu sug saaxiib ama sii soco, waan kaa daba imaane. Geedi wuxuu yidhi, warniyahow, bahalna cayriin ma daayo, ninna caadadiis ma baajee. gabadha ha dilin, kolley dabeecaddaada waan aqaanaa. markaasuu Warfaa yidhi, warniyahow, adigoo kale anigu ma ahi ee sheekada tan waxna kama taqaanida baddaas, isaga baxo, sii soco ama iyara sug, waan kaa daba imane. markuu soo tagay Warfaa ayuu soo taabacay isagoo socodka boobsiinaya. markaasuu soo gaaray gabadhii. markuu ka daba yimid ayay cabaar wada hadleen. Geedi ma uusan maqleen sheekada, balse waxa uu hal mar arkay ninkii Warfaa ahaa oo gabadhii bahal dharbaaxa ah il iyo baal fujiyey. markaasay dhabanka qabsatay. show gabadhu qurux badana ah, daankii ayaa casaaday. markaasay yara carootay oo ay meeshii ay taagnayd horay uga dhaqaaqday. markay dhowr tallaabo hore u sii qaaday ayay si degdeg ah isu soo kala wareejisay. ma aqaan waxay soo gocatay. markay soo noqotay Geedi, niyadda waxa u gashtay tolow maxay ku samayn doontaa. warniyahow, saaxiibka Warfaa ma u digtaa oo ma u sheegtaa qoftii waata kugu soo socotee, iska ilaali ma dhahdaa. markaasuu is yidhi, bal ogow waxay samayso. markay soo noqotay ayay ku tidhi, Warfaa, lambarkaygu waa intaas iyo intaas ee qoro haddaad rabtid. markaasuu Warfaa lambarkii soo qortay oo u yimid saaxiibkiis Geedi oo yidhi, waad u jeedaa haddaba ina dhaqaaji. ninkii ahaa Geedi afkiibaa juuqda gabay. wayse soo raaceen, suuqooday aadeen, wayna soo shaheeyeen. maalmo kadib, Geedi oo jooga xaafadda ayaa waxa soo wacay ninkii Warfaa ahaa. markaasuu yidhi, war saaxiib, iska waran caafimaadkaaga. markaasuu yidhi, wacan ee Warfaa, warka isi waayahaga adduunyo, maxaad haysaa? markaasuu yidhi, niyahow, wax kale kuma soo wicine, waxaan kuu soo wacay inantii maalinkii aanu isbaranaynay. sheekadayadu meel fiican ayay noo maraysaa oo xaaladdu waa dhiindhiin. caawana waan ballansannahay, niyahow, waxaan rabay fiidkii inaan ku soo maro oo aynu israacno. markaas ayuu Geedi yidhi, saaxiib, mashquulkaygaa badan, balse
waan ku dadaali doonaa inaan waqti helo aan meeshaas ku ugu raaco. Aniga laftirkaygu sheekadiinu meeshay ku dhammaato inaan ogaado xiisay igu haysaay. Markaas ayaa fiidkii la gaaray. Warfa waxa uu soo wacay ninkii ahaa Geedi isagoo la saaxiib, waan degdegsanahay oo qoftii iyada ahayd ayaan waxaan u hayaa jacayl iyo boholiyo waxda dhaaf ah ee ma ku imaadayo may raacaysa. Markaasuu yiri Geedi, warniyow saaxiib, waqti ma hayo, bal waynu is arki doonaa, adaana iga sheekeyn doona sheekadu iyo siday wax u dhacaan waa inoo mar kale.